wuxuu og yahay xaalka dagaalka laascaanood wuxuu og yahay maslaxadda cid kasta wuxuu og yahay mustaqbalka labada ciidan halka uu ku dambayn doono wuxuu maamulaa adduunka oo dhan wuxuu garanayaa halka aad adigu taageersan tahay wuxuu og yahay cidda wax dulminaysa wuxuu kale og yahay cidda la dulminayo soo dhawaada saaxiibayaal mar kale بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو دواada saaxiibayaal mar kale muuqaalkeena maanta waxa aan kaga faalloon doonaa cidda haysa xalka dagaalka laascaanood siinta aynaan u galin muuqaalkeena waxa aan si sharaf ku dheehan tahay kaaga codsanaya inaad muuqaalka like saarto haddaad nagu cusub tahayna nagu soo biirto mahadsanid wuxuu og yahay xaalka dagaalka laascaanood wuxuu og yahay qulubta kuwa dagaalamaya wuxuu og yahay maslaxadda cid kasta wuxuu og yahay mustaqbalka labada ciidan halka uu ku dambayn doono wuxuu maamulaa adduunka oo dhan wuxuu garanayaa halka aad adigu taageersan tahay wuxuu og yahay cidda wax dulminaysa wuxuu kale og yahay cidda la dulminayo cidda aan u jeednaa waa allaha weyn ee wixii weynba ka weyn abuuraha dhidibada u taagay adduunka oo dhan isaga oo aan cidna ka eega sameeyey samooyinkan bilaatiirka ah guglay dhulkan dherarka badan ku qotomiyey buurahan xajmiga weyn allaha inaga abuuray waxaan jirin inagu abuuray gamcihiisa sharafta badan ee leerida ku ah damaceena xakameeyo dareenadeena togan iyo kuweena tamban ina siiyey xoolahan badan ogna halka uu xaalkeena dambe noqonayo allaha colaada keena sababna uga dhigay inay addoomuhu iyagu ishalaagaan cirib dambeedkana ka dhigay nabad aan dhammaan cilqabayaashana u bedela farxad qabayaal allaha daalimka ku hoojiyo gurigiisa daalim kastana dunida dhaafsha daweeye qalbiyada ay dilaaciyeen dulmifalayaashu wuxuu og yahay halka ay ku dambaynayso dirir kastaayiba wuxuu sii og yahay inta u godgelaysa dagaal kasta wuxuu kale og yahay xalka u dambeeya iyo waxa uu noqon doono in ka badan boqolaal ayay ruuxdu dhaaftay balse waa qadarka eebbe iyo doonista aadamaha dad baa hantidoodii duntay balse waa qadarka eebbe iyo dulmifalaha doonistiisa duul badan ayaan garanayn waxay naftoodu doonayso balse waa qadarka eebbe iyo doonista caqligooda doqomaysa degaansiin gaal nin ku dooda iyo nin ku diidaba ma baahdaha loo wada baahan yahay go'aankiisu waa diyaar da'yartii adduunyada ka tegey dad bay diiwaankooda daartan dambe galeen allaha aan labalabayn go'aankiisa wuxuu xukumay wakhti hore ciddii garle iyo ciddii gardaran ee weli waxaysan gaadhin halkii uu ugu talagalay go'aanka qof yidhaahdaa wuxuu ka cadhaysiiyaa dadka qaybna wuu raalli gashaa laakiin go'aanka ilaahay qulubta oo dhan ayaa raalli ku ah qolana guul baa u qoran qolana guuldaro ragga guusha hantiyi doonaa waxa ka dhiman dadaalo badan oo ay ku helayaan guusha ilaahayna sabab uga dhigay haddii aysan dadaaladaas samayn inaysan helaynin guusha ragga guuldarrada hantiyi doona waxaa jira dadaalo badan oo ay ku hantinayaan guuldarrada laakiin ilaahay ka celcelinayo iyaguna ay ku haliilayaan guusha waxaa kaa xigta cabsida weynaha tala saarashadiis ka dheeraanta wuxuu kuu diiday baryada iyo kaalmaysiga sabirka iyo salaada guuldarradana waxaa kaa xiga duqaynta daaraha laynta shacab aan waxba galabsan joogitaanka jidaadan lahayn iyo ka fogaanshaha rabbiga iyo inaad iska indhatirto aayaadka ilaahay ee uu kugu diidayo dulmiga meel la'aan dhici mayso hantida burburaysa daaraha dumaya hooyada oohinteedu qubatay iyo da'yartii dhashii ku hubooday waase haddii aan la marin habaabin hilinkeeda khamrigood heensataa iyo jaadkood gelisaa daankuba intuba waxay mafraati u yihiin halganka hoosaasintiisa ku hagaaga salaada ilaahayna sarreeyow nagu hoori hoggaanka qayb ka mid ah dadweynaha Soomaaliland ayaa qambaal rayn iyo dabaaldeg ah oo ay ugu muujinayaan dagaal oogayaasha duleedka laascaanood dul gowrila ku qoray diiwaankooda caafimaad واسدوني برعانو كي دولمنا lagu sii tigtigsanaye ilaahayna waa daymo badane u saaxiib ah ciqaabka kiisa degdega dadweynaha SSC ayaa dhambaal tiiraayo iyo dunya la'aan iyo hoy la'aan ah ku qoray diiwaankooda caafimaad daa'imkeena weyn waa mid naxariisi dhammaantiin agtiisa ay ka soo burqatee waxaynu dhaaya dhowrnaa waa gargaarka uu fidin doono wuxuu daa'im qorsheeyo micid baa diidi karaysa warka daalimka doorsoomay da'yarta hargeysay dhagihiina ka daboosha gutii iyo gunaanadkii daawada xukunka ilaahay weynu waayo dhowrna adiga iyo aniguba haddii
daa'im inoo ogolaado miyaanay kula ahayn inaynu ducada ku dadaalno si daa'imka hiilkiisu uu soo degdego waadna ku mahadsantahay daawashada muuqaal fadlan haddii aad halkan nala soo gaadhay muuqaalka like saar mahadsani